السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada Science 24 waa casharadii ku saabsanaa electronica marka waxaan ka soo hadalay waxa loo yaqaan current iyo waxa loo yaqaan voltage iyo waxa loo yaqaan resistance iyo saddexdaas sharciga sukeeniya oo la yiraahdo Ohm's law marka saddexdaas iyo sharcigaas markaan ka soo hadalay oo aynu Ohm's law waxa weeye waa voltage waxa weeye waa currentiga oo lagu dhuftay resistance-ka intaas marka sharcigaas inoo sheegay marka waxaan haysanaa mareegiyo waxaan electronomaqul qulaan hadii circuit-ku aysan xidhnayn complete circuit hadii ayna circuit aysan xidhnayn hadii circuit-kana halka ku haysto hadii circuit-kaas meel ka furan tahay meel ka furan tahay wax electronomaqul qulaan hadii laambada ka saaro kala maqul qulaya ama taa ka saaro inay tahay complete circuit inta was la garanay markaan haysano circuit-yada ama mareegyada waxa loo xidhaa laba qaab way ma inaan serious u xidho وقالوا 10 ما تكادنا serious circuits أما وين أنا أحضر parallel وأنا أحضر متقانا يجو إسدن عياله إن وده حديديو يناس إسدعديو مركا هذا ما تحنا كادنا 10 كينا يعني serious circuits ده حرير كا الحديديو مركا هذا لما اللامبدون بحثته these lamps are connected in series مركا يعني serious من اللامبدا هنحنا لامبدا فرق بدنا نحنا كرا هذا دونه بقول بنحنا كرا سيداس لكن قف وين وجادا يعني electronomaqul qulaya markeeda soo siiraanaya hadda boqol laambad ku xidhan laambada hore in ma laambada laada ka dambayso ma garanaysa oo siiraanaya lightku marka sidaa darteed marka serious baan u xidhay laambadaha labada laambadood hadii aan baral u xidhan hana insha Allah 10 man kaga hadalnaa marka labada marka baral u xidho waxay qaybsanayaan 15 voltage bay qaybsanayaan marka these lamps are shared for potential difference-ga oo aynu u waa voltage from the battery bay qaybsanayaan labadaas hadii hadaba aan laambad ka saaro in laambada kale goes out way midooda hadaan tan saaro takal way dameysaa hadaan tan saarana takal way dameysaa tii hadaan laambada meel ka saaro waa tadan isha circuit-kaas uu xidhnayn oo aan meel ka saaro aan kala jaro ma garanaysaa breakdown ku sameeyo meel aan ka jaro way laambada kale way dameysaa markaas intaas wayba circuit-ka marka loo xidhay serious clear isku daba taxaysaa haddaba markaan isku daba taxo circuit-yada oo aan isku daba taxo labada xabood isku daba taxo waxaan sameyn karaa hadda waxaan haystaa kan 15 voltage laambadan koowaad waxaan haystaa 40 laambada kale waxaan haystaa 60 marka waxa la yiri tusaale ahaan kale waxa soo saartaa waxa loo yaqaano voltage 1 oo kale tan bixin karaa tan voltage 2 baan bixin karaa waxaan در او بان qoray waxaan ka dhigayaa v1 iyo v2 tusaalahaan kale baa liiga soo saar labada voltage-ka marka wax ka soo saar maayo sharcigeena Ohm's law baan ku soo saaraya Ohm's law waxaan onayaa v1 waxay noqon tahay waa current-iga oo lagu dhuftay resistance-ka hadaba maadaama hadeer aan resistance-ka haysto resistance-ka waan haystaa resistance-ka koowaad hadeer koob bixi resistance 1 laakiinse waxaan haysan current-iga qulqulaya halkan current-iga qulqulaya meesha marka current-iga maxaan ku saari karaa marka waan fikiraa dhaha current-iga maxaa lagu helay waxaan onayaa marka current-igu wuxuu la mid yahay daxan ku qoro current-igu wuxuu la mid yahay waa voltage-ka loo qaybiyay resistance-ka marka voltage-ku wuxuu noqonayaa waa 15 kan haysanay waa 15 volt loo qaybiyay resistance kala labada xabo waan isku darayaa waa 100 waa resistance waa total resistance halkan waa total resistance oo loo qaybiyay 100 ohm marka waxa ka soo baxaya hadaan 100 qaybiyo waxna waa 0.15 ampere intaas waxa weeye waa current-iga waa kaasi meesha maraya labadaas soo qaybinaya kadib waxaan haystaa marka hadda waxaan haystaa resistance waan haystaa resistance waa la siiyay current-ina waa soo saartay kadibna voltage waan soo saari karaa okay voltage hadaba intii baan ku bedelanay marka v1 waxay noqonaysaa 0.15 ampere oo lagu dhuftay 40 waa 40 ohm waa ta koowaad waa voltage-ka hadeer koowaad aan soo saarana marka hadaan isku dhufto marka 0.15 aan ku dhufto 0.15 aan ku dhufto 40 waxay soo baxaysaa waa 6 waa 6 volt waa ta koowaad marka waa v1 haddii aan v2 aan soo saartay iyadana waxaan noqonaysaa
waxaan v2 na waa sidoo kale waa currentiga oo lagu dhuftay resistance-ka labaad oo ah 0.15 ampere-ka oo lagu dhuftay 60 ohm. marka v2 marka inta hadaan isku daro 0.15 lagu dhuftay 60 waxay noqonaysaa 9 volt waa v2. marka v1 iyo v2 labadaas hadaan isku daro hadda wayna soo saartaa totalkii. marka hadaan ku daro 6 hadaan ku daro 9 waxay soo baxaysaa waa 15 volt. marka way kala qaybsanayaan. kala qaybsashada micnihiina waxay ku xiran tahay resistance sida voltage-ku mar walba wuxuu la xiriiraa mataqaanaa resistance-ka. resistance haday barato voltage-ka magaranaysaa haddii resistance badan tahay voltage badan baa ku dhacaya, haddii yar tahayna voltage yar baa ku dhacaya. marka haddii ratio haddaan soo saaro 40 iyo 60 waxay yihiin waa 2:3 weeye. marka tan waa sidoo kale waa 2:3 haddaan 6 haddaan xagga dhigo xaggana 9 dhigo 3 qayb waa 2 tan kale 3 qayb waa 9 dabdo 6 iyo 9 haddaan 3 qayb waa 2 iyo 3 waa 2 to 3 weeye. marka saddex ratios bay ku shaqeynayaan. marka inta uma ku saaraya markaan serial haysto. okay haddii aan tusaale kala bixino tusaale ahaan hadda waxaan ku haystaa kan circuit baan ku haystaa. circuit-kan haysto ma garanaysaa waa kii oo kale 15 voltage baan halka haystaa 15 voltage baan haystaa. marka 15 voltage markaan haysto 15 voltage baan haystaa xaggan resistance baan haystaa halkan resistance kalaan haystaa halkan resistance series ma wada xidhay gabigoodaba. marka 2.2 kilo weeye kilo xaggan waa 10 xaggan waa 10 kilo ohm weeye xaggan waa 10. marka kilo ohmka wax kale ma waxaan ku qoray kadib qofku inuu hadhow ma garanaysaa isku cabir u bedesho sidaa darteed haddii kale ma garanaysaa kama shaqeyn kartid. marka haddii aan hadda aan bilowno marka koowaad waxaan soo saaranaa currentiga micnaheedu haddaan doonayno mataqaanaa tusaale ahaan waxaa la weydiiyey inaad soo saartid v1 v2 v3 v4 oo kale lagu soo saar. marka inta markii lagu yiri soo saar waa inaan magaranaysaa marka koowaad baan raadiyaa currentiga. marka currentiga maxaan ku helinaa baan niri micnaheedu currentiga waxaa lagu helayaa saacashkaad currentiga wuxuu la mid ahaa waa voltage-ka oo loo qaybiyay resistance-ka totalka. marka voltage-ku waa imisa sorry dan qorshayton waxa waa 15 volt hadaan ay resistance-kana inta run baa isku daraya resistance-ka koowaad total resistance. marka total resistance waxaan onayaa total resistance wuxuu la mid yahay resistance la isku daray yani haga resistance koowaad talabaad saddexaad afraad la isku daraya. marka 2.2 micnihi waxa noqonaysaa waa 1200 sorry hadda xagga hoose ku qoran because xaggaas micnihi ma haysto space badan ma haysto. okay xaggan hoose ma inagu qoray xataa resistance-ka waxay la mid tahay 200 ohm oo lagu daray 100 ohm oo lagu daray 10,000 waxa ohm baa wada bedelaysaa lagu daray 100 ohm. marka intaas waxay la mid tahay marka isku wada daro waa 12,400 bay la mid tahay oo ohm. intaas waa total resistance-ka. marka haddaan hadda raadiyo marka currentiga koowaad oo aan dhaho micnaheedu currentiga aan totalka soo saaro micnaheedu currentiga totalka meesha maray resistance-ku dhan waxa dhex maray hal currentigaas dhex maray resistance-ku dhan hal currentigaas dhex maray. electronada xaq walba isku mid micnaheedu serious-ku waxay leeyihiin electronada qulquraya waa isku mid. marka casharka inaan markii hore inaan idin sheegay micnaheedu marka serious haystid electronada ma qaybsamayaan wixii xaq uma wada marayaan meel kale ma aadayaan electronada isku mid. marka total micnaheedu currentiga meesha maraya totalka micnaheedu currentiga wuxuu ahaa waxaan idhi waa voltage-ka oo loo qaybiyay gisamti micnaheedu total resistance-ka marka 15 volt oo loo qaybiyay 12,400 oo ohm maxaa ka soo baxay inta markaan soo qaybiyo waxa ka soo baxay waa 0.01209 ampere. marka inta waxaan u qori karaa maadaama ay yar tahay milli baan u qori karaa. marka milli qorinayna waxaan ku dhufanaya marka waxaan waasaa 1.209 milli ampere kasaas badan loo qaadan marka yar tahay. marka inta markaan haysto micnaheedu resistance-nada waa soo saari karaa. marka wax walba hadda micnaheedu wax walba waan haystaa tan waa micnaheedu resistance-ka soo saari karaa maadaama aan haysto haddaan haysto current waan haystaa resistance-ka soo saari karaa kana waa sidoo kale waa soo saari karaa mid walba waa soo saari karaa. marka maadaama hadda aan mid walba soo saari karo waxaan oranayaa hadda tusaale ahaan oo kale resistance current-ga micnaheedu waan haystaa soo ma waxaan oranayaa kaliya voltage-ka koowaad. okay voltage 1 hadda calanka micnaheedu calaamad bedelo calanka qalinka voltage 1 wuxuu la mid noqonayaa v1 waan bixinayaa wuxuu la mid noqonayaa marka currentiga oo lagu dhuftay resistance-ka koowaad. marka currentiga wuxuu la mid yahay 0.0010209
ambeer resistance koowaadna wuxuu ahaa 2.2 waxaan noo samkaa 2200 ohm marka intaas ku dhufanaya markaas ku dhufta waxa ka soo baxaya 2.66 volt taas waa koowaad haddii aan markaa talabaad oo kale v2 na waa intii oo kale yani waxaan oranayaa currentiga oo lagu dhuftay resistance ka labaad marka 0.00129 ampere oo lagu dhuftay 100 ohm marka 100 micni 0 gumbo raraya micni godkan raraya micni kan waxa ku 100 laba ka soo tagay bas marka waxaan oranayaa marka waa micni laba gud buu rarmay waxa waa 0.1209 volt taasina waa talabaad saddexaad haddaan dhaho v3 waxay la mid noqonaysaa waa intii waan ku bedelinaya waa intaan haystay maadaama waa isku sharcigeedii maadaama sharciga haysto micni currentigu waxaan ku dhufanayaa saddexaad resistance waa isbedelaysaa because current waa isku midkii 0.01209 ampeerka oo lagu dhuftay marka resistance-ka inaan eegtaa resistance-ka saddexaad waa 10,000 baan ku dhufanayaa kadibna maxay soo baxay 10,000 micni afar gud buu guuraya marka 1 2 3 4 12 weey marka 12.09 volt okay maxaa hadhay marka v4 baan u hadhay micnihi v4 waxay la mid tahay qalinkan bedelo waa currentiga oo lagu dhuftay resistance-ka afraad marka waa 0.00129 ampeerka oo lagu dhuftay resistance-ka 100 weeye 100 ohm hadda si fiican u qoro 100 ohm marka waxay la mid tahay 100 laba god buu guuray waa taan ilahanay waxna soo markaa 0.1209 volt marka intaas waa resistor waxa loo yaqaano voltage-kii marka hadda inta haddaan isku daro haddaan v1 v2 v3 isku daro waa shay toban soo baxda waa shay toban weeye marka maxaan nidhi currentigu maraya circuit-ku marka tahay serious waa isku mid currentigu marka haddii aragtid magalanaysaa currentigaas waa isku mid meesha laambadaha maraya waa same currentiga marka haddaan currentiga haysto waxaan ku dhufanayaa resistance-da waan ku dhufanaya marka waxay soo baxaysaa voltage mid walba ay soo baxaysaa haddii tan oo tan ku dhufanay current ku dhufanay tan current ku dhufanay tan current ku dhufanay tan current ku dhufanay kadib voltage waad haysataa waaba intaas easy-ka waxa la yaqaano waxa la yiraahdo in serious circuits marka serious circuits waaba intaasba wax micni easy weeye serious ku saaraysaa formulka ma taqaana kaliya ee ahaa ma taqaana Ohm's law baa xusanaasa Ohm's law waxaan voltage micni voltage wuxuu la mid yahay waa currentiga lagu dhuftay resistance-ka inta uma xusnaanaysaa marka marba ka raadinaysa marka hadaa ka raadinaysa wax noosa voltage-ka loo qabay resistance-ka haddaad resistance-ka magaranaysaa aad marba kii raadinaysa ma taqaana baad ku bedelinaysaa haddaad resistance-ka raadinaysa wax noosa voltage-ka loo qabay current marka inta bad haystaa kadibna waa soo saaranaysaa marka يعني serious circuit waa intaas marka halkaas ku soo jirnaa casharkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh haddii aad su'aal qabsid waan soo weydiin kartaa